kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa Qol Media TV waxaad ku soo dhawaataan warbixin naga soo gaadhay geega Soomaalida iyo guud ahaan caalamka intiisa kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland ayaa safar ugu ambabaxay wadanka Imaaraadka Carabta golaha wakiilada Somaliland waxay dalacsiyeen darajooyinka 3 degmo oo ka tirsan Somaliland qodobadaas iyo kuwa kale u diyaar garooba madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa safaraan la shaacin maanta ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta oo kamid ah dalalka saameynta ku leh arrimaha Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland ujeedada safarka madaxweyne Deni lama oga balse waxa uu ku soo aaday xilli uu dalku doorasho ku jiro isagoo madaxweyne Deni lagu tiriyay inuu kamid yahay siyaasiyiinta u hanqaltaagaya madaxtinimada Soomaaliya xogaan helayno ayaa waxay sheegayaan in safarka madaxweyne Deni uu la xiriiro wada hadal uu la leeyahay mas'uuliyiinta shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso DP World oo wax muuqda ka qaban dekedda Boosaaso tan iyo markii lagu wareejiyay bishii Abriil ee sanadkii 2017 ayaa hadda qarka u saaran inay Puntland ka laabato heshiiska ay kula jirtay madaxweyne Deni ayaa laga sugayaa inuu kalfadhiga baarlamaanka Puntland ee furmaya 25 bishan horgeeyo warbixin ku saabsan heshiiska DP World iyo waxa ka suurtagalay ballanqaadkii shirkadda ee ahaa inay si degdeg ah u bilaabayso dayactirka dekedda qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa hore u soo jeediyay ila kansalo heshiiska DP World isla markaana maamulka dekedda lagu soo celiyo gacanta dawlad goboleedka Puntland Imaaraadku waxa uu Puntland ka taageeraa mushaharaadka iyo tababarka ciidamada badda Puntland ee loo yaqaano PMPF golaha wakiilada Somaliland ayaa ansixiyay in degmooyinka Caynaba Taleex iyo Balagubadle loo dalacsiyo darajada B halka markii hore ay ahaayeen darajada C gudaha saddexdan degmo ayaa ah magaalo madaxda gobolada Balagubadle Saraar iyo gobolka Xaysimo 12 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa golaha u soo gudbiyay mooshin ay ku doonayeen in darajada 28 degmo doorasho oo ku yaala Somaliland kor loogu qaado xildhibaanada ayaa soo gudbiyay in degmooyinka kala ah Silaxley Sheekh Caynaba Lughaya Balagubadle Taleex gar adag xudun oo darajadoodu hore u ahayd C loo dalacsiyo darajada B sidoo kale waxay soo jeediyeen in degmooyinka Gudmo Biyacas Dila Baki Bullaxaar Garbadadar Wajaale Sabawanaag Daarasalaam Mandheera Faraweyne Qoryaale Xiis Yagoori Hulul Boon Tacarta Wadwad Harta Sheekha Xaaji Saalax oo darajadoodu ahayd D loo dalacsiyo darajada C xildhibaanada ayaa degmada Ceelafan oo hore darajadoodu B u ahayd u soo jeediyay in loo dalacsiyo darajada A mooshinkan ay xildhibaanadu ku codsanayeen dalacsiinta darajooyinka degmooyinka kor ku xusan oo tiradoodu dhan tahay 28 degmo ayaa badankiisu jabay waxay goluhu ogolaadeen kaliya dalacsiinta darajooyinka degmooyinka Taleex Balagubadle iyo Caynaba oo loo dalacsiyay darajada B xildhibaan Cabdinaasir Qodax oo hogaaminaya xildhibaanada mooshinka golaha hor keenay ayaa garyaqaanada golaha ku eedeeyay inay si aan laga fiirsan u jabiyeen mooshinka isla markaana 3 degmo oo kaliya ay ka soo qaateen halka ay daaqada ka saareen 25 degmo ee kale atay daawadayaal imikana wararka ciyaaraha guud ahaanba waxa qaaradda Yurub ka socda horyaalada kala duwan ee laga ciyaaro qaaraddaasi sida horyaalka La Liga dalka Spain Serie A wadanka Talyaaniga Bundesliga wadanka Jarmalka Ligue 1 wadanka Faransiiska iyo kan ugu xiisaha badan ee Premier League wadanka Ingiriiska kulamo xiiso badan oo dhacay habeennimadii xalay ahna waxa u dhignaayeen sida tan ankurmar horyaalka wadankaasi Isbaanishka naadiga Barcelona oo marti ku ahaa gegida kooxdaasi Atletico Madrid ayaa waxay guul darro dhabarka loo soo saaray 2 gool iyo waxba iyadoo tababaraha kooxdaasi Barcelona
Ronaldo Koeman oo ciyaarta ganaax ka ahaa isla markaana uu ka daawanayay qaybta sare ee fadhiistan taageerayaashu. Atletico Madrid ayaa guul labiyay Eber ka gaadhay dhigada Barcelona waxayna goolasho uga mahad celinaysaa wiilkeeda Neymar iyo Luis Suarez oo isagu ka soo tagay naadiga Barcelona xilli ciyaareedka hore. Luis Alberto Suarez ayaa dhaliyay goolkan labaad ee hana qajaray kooxda Barcelona waxayna taas cadaadiska ku sii kordhisay macalinka kooxda Barcelona Ronaldo Koeman oo la filayo in la ceyriyo saacadaha soo socda. Geesta kalena horyaalka wadankaasi Ingiriiska kooxda Manchester United oo ku ciyaaraysa gegadeeda Old Trafford ayaa waxay barbardhac gool iyo gool la gashay naadigaasi Everton ee ka dhisan magaalada Liverpool. kulanka oo xiiso lahaa ayaa Manchester United waxay qolka kaydka ku soo bilowday wiilka reer Portugal laacibka dunida laacibka kubadiisa aan la qaban karin ee Ronaldo oo noqonaysa tan iyo markii uu Man United imaado kulamada rasmiga markii koowaad uu ku soo bilowdo qolka lebiska. Ronaldo la soo geliyay qaybta labaad ayaan ciyaarta wax saameyn ku yeelan maalinimadii shalay waxayna Man United gool la hormartay qaybta hore ciyaarta waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahan Anthony Martial kubadaysa rasmi uga soo shaqeeyeen ciyaaryahanada Mason Greenwood iyo Bruno Fernandes. ugu dambeynna waxay cagta u gashay wiilka reer France Martial kaasi oo gool ku bedelay. markii la iskugu soo laabtay ciyaartana naadiga Everton oo dardaryo iyo waayo cusub garoonka la soo galay ayay u suurta gashay inay dhaliyaan goolka barbaraha ciyaaryahan Towson oo kala soo wareegtay kooxda Crystal Palace ayaa suurta galiyay goolka baraajaha ee Man United hana qajaray kaasoo ku sii adkeeyay xaaladda kooxda shayaadiinta cascas. gabagabadii Man United waxay taali weydeen inay qaadato 3 dhibcood ee kulankani waxayna ciyaartu ku soo idlaatay barbardhac gool iyo goola. Man United kulanka dambe waxay garoonka King Power Stadium kula ciyaari doontaa naadiga Leicester City oo naadiyaasha hana qajara kooxaha waaweyn ee wadankaasi. geesta kale naadiga Chelsea oo qaabilay naadiga Southampton wuxuu gaadhay guul 3-1 xilli dambe goolasha guusha waxay uga mahad celinaysaa ciyaaryahan Timo Werner weeraryahanka hore kooxda RB Leipzig iyo xulka qaranka Germany iyo Mason Mount oo isagu muddooyinkii u dambeeyay dhaawac uga maqnaa kooxdaasi Chelsea ayaa si adkaysatay hogaaminta horyaalka wadankaasi waxaana la filayaa in Liverpool haddii ay maanta guul darro la kulanto inay Chelsea mar kale majaraha sii dheeraysato. Arsenalna waxay barbardhac gool la'aan la gashay naadiga Brighton kulan xiiso lahaa oo ka dhacay gegida Emirates. ugu dambeyntiina kulanka xiisaha badan ee horyaalka wadanka Ingiriiska ee toddobaad ayaa maanta dhexmari doona naadiyaasha Liverpool iyo Manchester City. kulanka oo ka dhici doona gegida Anfield Stadium ayaa kan ugu xiisaha badan xilli ciyaareedyadii u dambeeyay maadaama labadani kooxood ay yihiin labada kooxood ee Ingiriiska ee saameynta ku leh koobka Yurub ee Champions League. natiijada ciyaarahaasi iyo ciyaaraha kale laga ciyaariyo horyaalada Yurub kala soco Goal Media TV. waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa warkii Goal Media TV. intaanu ku kulmayno warkan iyo wararka xigaba waxaanu kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh.